toddoba calaamadood oo aad ku garan karto qofka ku neceb. Qof kasta oo caadi ahi waxa uu leeyahay dad neceb. Dadka ku necebi waxay u qaybsamaan laba qaybood, kuwaasi oo kala ah kuwa khatartoodu aad u yar tahay oo nacaybkooda si toos ah u soo bandhiga, iyo kuwa khatartoodu aad u badan tahay oo nacaybkooda si qarsoon oo aan toos ahayn u soo bandhiga. Sababta ay qaybta labaad ee dadka nacabka ah ay khatartoodu u badan tahay waxay tahay mararka qaar waxay iskaga kaa dhigayaan saaxiibada oo kale. Taasina waa sababta ay muhiimka u tahay inaad barato sida loo aqoonsado si ay kaaga tilmaamnaadaan dadka kale. Waxaa aad u muhiim ah inaad ogaato in dhammaan calaamadaha aan muuqaalkan kuugu sheegi doono aad qofka ka hesho ka hor inta aanad go'aamin in qofkaasi ku neceb yahay. Qaar badan oo ka mid ah calaamadahan qof aan ku necbayn oo caadi ah ayaa xaalado gaar ah samayn kara, balse hadday dhammaantood qofka ka muuqdaan waxay caddayn fiican u yihiin in qofka aad ku aragtay uu yahay qof nacabkaaga ah. Calaamadaha muujiya nacaybka. 1. Qofkuun ku ammaanin ama aan ku hambalyeyn. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee qofka qof neceb samayn kara waa inuu ammaano ama hambalyeeyo qofka uu neceb yahay. Xataa haddii uu ammaano ama hambalyeeyo, waxaad ogaan doontaa in sida uu u hambalyeynaya ay aad uga duwan tahay sida dadka kale. Halka saaxiibada badankoodu ay kuugu hambalyeyn doonaan si diiran markaad hawl fiican qabato, qofka ku neceb waxaa aad ugu adkaan doontaa inuu sameeyo sidaa. 2. Calaamadaha jidhka ee muujiya niyad jabka markaad guulaysato. Markaad shaqo fiican qabato ama aad gaadho mid ka mid ah hadafyadaada, qofka ku necebi kuma faraxsanaan doono natiijadaada. Marka uu dhageysanayo sheekadaadana, qofka ku necebi waxaa laga yaabaa inuu taabto sankiisa, taasi oo ah calaamadu qofku jidhkiisa ka muujiyo markaanu jeclaysanayn waxa meesha ka socda. 3. Qofku ku qosli maayo kaftankaaga. Xataa haddii aad tidhaa wax aad u qosol badan, qofka ku necebi awoodi maayo inuu hadalkaa ku qoslo, isagoo dhoolla caddayn been ah iska keena mooye. 4. Qofkoo hadallo xun kaa sheega. Qof kasta oo kaa sheekeeya markaad ka maqan tahay maaha qof ku neceb, balse marka uu qofku adoo maqan kaaga sheekeeya si xun oo dadka kale ku dhiirigelinaysa inay sidoo kale ku nacaan, waxaa hubaal ah in qofkaasi ku neceb yahay. 5. Qofkaasi wuxuu danayn doonaa inuu ogaado warkaaga. Qofka ku necebi wuxuu badanaa isku dayi doonaa inuu ogaado horumarka noloshaada si uu u hubiyo inaad weli dhib ku jirto. Waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo ku weydiinaya su'aalo faahfaahsan oo kugu saabsan si uu u ogaado inaad faraxsan tahay iyo in kale. 6. Calaamadaha uu muujinayo markuu ku arko adigoon faraxsanayn. Marka uu dhageysanayo sheekadaada murugada leh, qofka ku necebi waxaa laga yaabaa inuu taabto sunniyaha indhihiisa, taasi oo ah calaamad jidheed muujisa in qofku uu ku faraxsan yahay waxa meesha ka socda. Wuxuuna noqonayaa qof tamar iyo enerji badan leh, xataa waxaa laga yaabaa inuu dhoolla caddeeyo. 7. Wuxuu isku dayi doonaa inuu kuu digo markaad isku daydo inaad guulaysato. Nacabka ku neceb qaar ka mid ahi waxay isku dayi doonaan inay iskaga kaa dhigaan saaxiibo ku danaynaya. Kuwaasi waa kuwa badanaa isku daya inay kuu digaan markaad isku daydo inaad ku guulaysato noloshaada, ama aad isku daydo inaad samayso waxay iyagu maarayn waayeen inay sameeyaan. Hadalka ugu dambeeya ee sida aad ku ogaan karto dadka ku neceb waa inaad fahantaa in si aad u ogaato inuu qofku neceb yahay aad calaamadahan oo dhan ka hesho. Intaa waxaa dheer, waa inaad hubisaa in qofkaasi uu calaamadaha ku soo celcelinayo marar badan. Sida ugu fiican ee aad iskaga kantarooli karto dadka ku neceb waa adigoo iska dhiga sidii oo aad aaminsan tahay iyaga, adigoo qorshayaashaadana si hoose oo sira uga shaqaysanaya. Haddii aad jeceshahay iyo haddii aanad jeclaynba, noloshaada waxaad la kulmi doontaa dad xun oo qaarkood ku neceb yihiin. Taasina waa sababta inaad barato sida loola dhaqmo dadkaasi ayuu tahay xirfad noloshaada muhiim u ah oo ay tahay inaad yeelato. Buugga Sida Loogu Guulaysto Wax Kasta oo Aad Rabto Noloshu waa buug ay sii daayeen Wax Ka Baro Channel, kaasi oo 100% kaa caawin doona tallaabana kuugu sheegi doona sida loogu guulaysto wax kasta oo aad rabto nolosha, loona xaqiijiyo hadaf kasta iyo himilo kasta oo aad leedahay. Si aad u ogaato xog dheeraad ah iyo sida aad ku helaysaba, daawo fiidiyogan, sidoo kalena linkiga ka eeg description-ka hoose ee fiidiyogan.